tawadayaal waa barnaamijkeeni tigsiga fog barnaamijkeena tigsiga fog waxaa idinku hayaa war degdeg ah oo haatan horfadhi media ay heshay oo ku saabsan heshiis markaasi qarsoodi ah oo la doonayo in lala galo shirkad Mareykan oo Vector la yiraahdo airport system taasoo ah shirkad yar oo ay leeyihiin markaasi koox Mareykan oo degan gobolka Virginia dalka Mareykanka isla markaana ay la sheegay in la doonayo in lagu wareejiyo Hawadii Soomaaliya. haddaba horfadhi media ayaa waxay u korgashay arrimahaasi saacadihii ugu dambeeyay waxaana markaasi aan ku sameynay kadbatag qaada dhigis iyo sidoo kale in aan xogo badan ka ogaano iyo cadaymo arrimahaasi. horfadhi media waxay ogaatay in arrintan ay ka dambeysay horta intaan dabasha qiimaha aan idila wadaagin macluumaadka iyo wararka ku saabsan arrinta aan dib u celinno hanaanka ay soo martay halganka la doonayay in hawada Soomaaliya lagu soo celiyo iyadoo oo aad ogeydeen in hawada Soomaaliya ay muddo 30 sanadood ku dhow taalay oo ilaa 28 sanadood ay iska taalay magaalada Nairobi xarunta dalka Kenya oo ay maamulisay hay'adda IACO International Civil Aviation Organization ururka qaramada midoobay u qaabilsan hawada weynka u qaabilsan. haddaba waxaa jirtay in 2017 dhamaadkeedii bishii December ay dowladda Soomaaliya ku guuleysatay in dib loo soo celiyo hawadii Soomaaliya isla markaana xarunteeda laga dhigo magaalada xarunta Xamar. waxaa ka horeeyay shirar ka dhacay magaalada Montreal oo ah magaalada xarunta u ah ururka International Civil Aviation Organization IACO halkaas oo uu ka soconayay shirar markaas kala duwan. horfadhi media waxay u korgashay in arrimahaas halkaas ka dhacay kamid ahaayeen in markii horeysa la doonayay in hawada Soomaaliya la kala qaybiyo oo laga kala dhigo laba lakab oo loo yaqaan lakabka heerka sare ah ee markaas ku dhow hawada caalamiga iyo heerka dhow. waxaa la sheegay dowladda Soomaaliya loo sheegay markii koobaad ba loona soo bandhigay inay kaliya maamuli karto inta dhow inta sarana lagu wareeji doono dalal kale oo ay kamid yihiin dalalka Seychelles iyo Hindiya oo iyagu maamuli doona. wargadii Soomaaliya halkaas joogtay ayaa la sheegay inay gabi ahaanba sutida u qabteen oo ay diideen inay aqbalaan arrintaasi. waxaana sheegay in Soomaaliya hawadeeda 100% ay u baahan tahay. Soomaaliya waagaas waxaa lagu xidhay shuruudo loogu sheegay inay ku dhameyso muddo 4 sanadood iyo 8 bilood gudahooda kuwaas oo ay kamid tahay in ay raadaar dhigto isla markaana ay baahiso magaalooyinka airportada caalamiga leh ee dalka ku yaala laga soo bilaabo Hargeysa, magaalooyinka Garowe, Boosaaso, Baydhabo, Kismaayo, Beledweyne iyo waliba magaalooyinka noocaas oo kala kuwaas oo dowladda Soomaaliya ay sheegtay in shuruudahaas buuxin doonto. hay'ad gaar ah ayaa kadib loo sameeyay oo la yiraahdo Somali Civil Aviation Authority ama hay'adda markaasi maamulka hawada ee Soomaaliya taasoo laga doonayay inay buuxiso shuruudahaas iyo wasaaradda gaadiidka iyo garoomada ee dalka. wararku haatan waxay sheegeen arrintaasi si ogaana looga horjoogsaday ama si ogaana ay qaar kamid ah markaasi hay'adda Civil Aviation Authority aysan u sameynin oo ay ugu tala gashay in la daahiyo. haatan arrintaas shaqadaas oo ahayd in 8 bilood ka hor dhamaato isla markaana garoomadaas oo dhan laga furo xarumo ayaan dhamaanin. taa bedelkeedina waxaa soo baxay in wasaaradda gaadiidka iyo dabcan xubno ka tirsan hay'addaasi Civil Aviation ka Soomaaliya oo qaabilsan ama waxda maamulka hawadu ay heshiis hoosaad la galeen company yar oo markaasi Vector la dhaho oo ku yaala dalka Mareykanka gobolka Virginia. waxaa cajiib ah in company-gan uu yahay marka hore company 9 sanadood oo kaliya jira ahaan sidoo kalena shaqaalihiisa oo dhan sida horfadhi media ilaa hadda macluumaadka heshay tahay sidoo qof ay yihiin aan lahayn gabi ahaanba assets ama waxyaalo hanti oo waaweyn. wararku waxay sheegayeen in arrintaasi ay soo socotay bariyihii ugu dambeeyay waxaana la filayaa inta ay Khamiista si wararku sheegayaan waxaa kaloo wararku sheegayeen maalinta Khamiista ay u dhici doono shir dhinaca Zoom-ka ah oo la doonayo in heshiiskaasi lagu sifaaqido laguna soo gabagabeeyo. waxaana arrintan ay tahay arrin aad halis u ah oo dabcan aan la ogeyn sababta hadeerto arrintaas loo sameynayo. arrinta kale horfadhi media ogaatay waxa waaye in hadeerto ururinta lacagta hawada sare ee Soomaaliya ay qaabilsan tahay wali taliyaal sare oo hay'adda IACO ka tirsan kuwaas oo kaliya qaata 2% wixii faa'iido halkaas ka soo baxa. laakiin company-gan cusub iyo shirkadan ayaa waxay doonaysaa in 20% ay qaadato sida heshiiska ku qoran. waana arrin aad khatar ugu ah markaasi qarannimada dalka iyo waliba markaasi hay'adda dhinaca socdaalka ee la doonayay inay ka shaqeyso danaha dadka Soomaaliyeed. marka laga reebo magaalada Hargeysa oo maamulka Somaliland ay diideen ama Somaliland ay diiday in hawada laga furo maadaama ay markii u horeysay xilliga dowladda Xasan Sheikh ay ku heshiiyeen in 50-50 laga dhigo 100% in hawada loo kala xukumo inta badanna aysan dalalka adduunka hawadoodu laga xukumo magaalada caasimadda
balse magaalooyinka kale oo dhan ayagu way soo dhaweeyeen in raadaara la keeno marka laga reebo Hargeysa oo iyada Soomaaliland ay diiday gabi ahaanba lama geenin raadaaradii dhinaca markaas hagitaanka diyaaradaha iyo sugidda amniga hawada ka qayb qaada lahaa haatanna waxaa laga dhigay arrin la qaban kari waayay wararku waxay sheegayaan in arrintan ay sidoo kale meel ka dhac aad u weyn ay ku tahay hufnaanta iyo la dagaalanka musuqmaasuqa ayadoo la sheegay in berihii ugu dambeeyay oo dhan ee dalka Soomaaliya ku soo cusboonaatay arrimo musuqmaasuq oo waaweyn wasaaradda gaadiidka ayaa horfadhi media waxay isku dayday inay la xiriirto ilaa hadda nooma suuro gelin sidoo kalena waaxda dhinaca civil aviation ee Soomaaliya ayaanu isku daynay inaan la xiriirno ilaa hadda ayagana nooma suuro gelin halka sidoo kale aanu la hadalay kambaniga laftiisa Victor kuwaas oo tafaasiisha ana dhex martay aad ku maqli doontaan wararkeena dambe ee biri hadii ay baydmo sidoo kale programkan waxaad ku daawanaysaan qaybta Englishka ayaad warbixinta behind the scenes ay ku saabsan tahay caawa oo aad ka daawan doontaan horfadhi media halkan aad kala socotaan ay tahay horfadhi TV waxaa kaloo horfadhi media group ay ogaatay daawadashada qiimaha leh arrin xasaasi ah oo kale ku saabsan in heshiiskan uu khatar ku yahay meelmarinta iyo socodsiinta hanaanka geedi socodka cafinta iyadoo Soomaaliya aan loo ogolayn in ay wareejiso hanti kale oo markaasi waxa loo yaqaano public waxyaalaha waaweyn ee dalka oo dhan ka dhaxeeya oo ay kamid tahay shuruudaha inaan la kareenin aw gabi ahaanba la dhiibin ama shirkado shisheeye aan lagu wareejinin hantida dalka iyo waliba maamulka dalka haddaba madaxda dowladda federaalka Soomaaliya ugu sarsareysa waxaa laga doonayaa in arrintan sida ugu dhaqsaha badan usoo dhex galaan isla markaana ay u joojiyaan ayadoo arrintan ay ka dhalan karto markaasi halis aad iyo aad weyn maadaama shirkadaasi ay qaadanayso lacag aad u badan oo noqon karta lacag markaasi bob noqon karta maadaama ay u muuqato lacagtaas inay lacag ku badan tahay 20% shacabka Soomaaliyeed iska go'an ta kale waxaa ka sii daran in shirkadaas ay tahay shirkad aad iyo aad u yar oo aan u qalbin inay maamusho dal dhan hawadiisa oo markaasi qaran ah oo madax banaan maadaama waxa ka shaqeeya isteed qof yihiin oo markii horfadhi media macluumaadka ku ogaatay ilaa hadeertaan hayno dalka Soomaaliya wuxuu wajahayay markaasi dhibaatooyin dhinaca musuqmaasuqa muddo aad u dheer laakiinse berihii ugu dambeeyay ayaa waxa in laga nastay hase yeeshee intii doorashada gaar ahaan sanadkan 2021 ee hadda dhamaaday dabayaaqadiisii iyo berihii ugu dambeeyay ayaa waxa soo ifbaxaya markaasi dhibaatooyin iyo waliba in arrintaasi ay xilligan doorashada lagu jiro dalku doorashada ku jiro ama geed socodka doorashada lagu jiro la doonayo dadka qaarkood inay arrimahaasi ka faa'iideystaan isla markaana la hoos geliyo arrimaha kale muhiimka waxa waaye inkastay hay'adan civil aviation authority ay tahay hay'ad madax banaan haddana maadaama dalku uu ku jiro geedi socod dhinaca doorashooyinka muhiim ma ahayn in gabi ahaanba la qaado tallaabooyin ay ka mid tahay heshiis la galo oo hadeerta la saxeexo maadaama ay taasi keeni karto bidqabka dhinaca habsami socodka dhinaca markaasi geed socodka doorashooyinka iyo in aan la kala faa'iideysan oo aan la ismidiroorin waqtigan haddaba dabashada qiimaha leh wararka dambe ayaad waxaad ku ogaan doontaan horfadhi media macluumaad buuxa iyo xogo dheeraada iyo sidoo kale jawaabaha aanu ka helno shirkadan iyo waliba dabcan haddii ay hadallo aan u dirnay iyo sidoo kale suurtagalnimo aan su'aalahan ka suganno wasaaradda gaadiidka iyo waliba sidoo kale dabashada qiimaha leh waaxda dhinaca hawada ay aan daba socono runtii waxa warkan runtii maxay tahay kamid ah wararka dhulgariirka ku noqon karo madaxda Soomaaliya ku soo beegmaya ayadoo oo beriyii ugu dambeeyay oo dhan ogeedina culaysyada dhinaca wadankeena ka jira iyo iyadoo dhawaan xitaa ay jirtay in dad badan oo Soomaaliyeed kacdoon aad u xooggan ay ka sameeyeen arrimaha faragelinta qaawan ee dalka lagu hayo iyo dhibaatooyinka dabashada qiimaha leh halkaan nagala socotaan horfadhi TV fadlan soo raaca horfadhi TV sidoo kalena qaybta Englishka ee warkan oo soo faahfaahsan waxaad ku daawanaysaa isagana qaybta horfadhi media kale